dalka Morocco isaga oo kala hadlay xaaladaha qaliijka iyo xiriirka qadar loo jaray iyo waliba arrimahaasi sida lagu xalin karo. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga waxa uu ku baaqayaa wada hadal si xal loo gaaro si loo dhameeyo khilaafka jira isla markaana ka jira qaliijka ayuu wada hadal iyo safgarad ku baaqay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. xogayaha qaramada midoobayna waxa uu leeyahay hal taageero wada hadalada ay wado Kuwait si xal buuxa looga gaaro khilaafka jiro. ugu dambeyntiina Mareykanka iyo Qatar ayaa gaaray heshiis cusub oo hub iibsi ah oo ku kacaya 12 bilyan diyaaradaha oo markaa noocoodana lagu sheegay F-15. guud ahaan daawadayaal waa iga intaa warkii habeenimo RTN oo idinkaga imaanaya xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi. warka waxa idin la socodsiinaysa anigoo Farxiye Cabdalla Muumina intaynu mar kale kulmayno nabadgelyo Ramadaanul Kariim.